wadada halbowlaha oo ah magaalada Buuhoodle ayaa olole iska wuxuu qabsaa oo lagu dayactirayay wadada weyn ee magaalada Buuhoodle ayaa waxa ka bilaabay dhalinyarada iyo qaar kamid ah waxgaradka magaalada Buuhoodle ayagoona baaq u diray bulshooyinka ku dhaqan magaalada Buuhoodle iyo waliba sidoo kale maamuladu in ay ka soo qayb qaataan wadada weyn ee halbowlaha oo ah magaalada Buuhoodle wadadan oo dhibaato xoogan ku haysa isu socodka gaadiidka halkan maanta aan taaganahay waxa weeye wadadii Buuhoodle ee dadkan aad aragtaan rag iyo dumar bay isugu jira wadada soo feetay inay deegaankooda wax ka qabtaan runtii waa dad yar laakiin wax bay qaban karaan hadii la isku tiirsanaado wax kasta oo loo wada kaco wax baa laga qaban karaa waad aragtaan saaka intaas la qabtay Soomaalidu waxa taa fudud tuurimo soo noqdo wax allaale iyo wax diyaal wixii deegaanka laga qabto mar kastaaba waxbuu noqonayaa marka waxaan dadka reer Buuhoodle ugu baaqayaa in la isku tashado oo ay wax wada qabtaan wadadan carrakaawada haday tahay iyo dhagaxa haday tahayba waxa looga baahan yahay deegaanka dadkana waa dadkii ka shaqeyn lahaa filantriga ka shaqeyn lahaa deegaankana waxa laga rabaa inay carrakaawadi bixiyaan inay dhagaxii bixiyaan qofkii 2 lowd bixinaya qofkii 5 lowd bixinaya qofkii 10 lowd bixinaya qofkii lowd dhigaxa bixinaya qof kastaaba wuxuu uu bixinayo halka isagoo ha ku shubo iska roga ha u diro halka ha ku shubo dadkana waxay diyaar u yihiin inay dhagaxa iyo ciidda iyo dhammaan carrakaawada oo dhan ay kala bixiyaan RC oo dadkan gunna yar ku siinaysa inay deegaanka iyo wadooyinka wax ka qabtaan horena uga marka waxaan ka codsanayaa ganacsatada iyo culimada iyo cuqaasha iyo waxgaradka gobolka Cayn iyo hay'adaha deeqaha bixiya dhammaantood wadadu waxa weeye bilicda magaalada ama ganacsiga fududeyntiisa ama horumarka deegaanka ayay wadooyinku ka yihiin marka in wadooyinka iyo dhulka danta guuda wax laga wada qabto loo guntado kii loo dhagaxa bixinaya iyo kii loo carrakaawada bixinaya iyo kii xoogiisa ku soo qadaysanayaba waad aragtaan waxaan taaganahay wadadii Buuhoodle ee halbowlaha ahayd ee magaalada halbowlaheeda ahayd wadnaheeda ahayd magaalada wadadaasi way dayacan tahay waanaga soo maxay haytooy waanu shaqaynaynaa bacadkaas aan taaganahay daawanayo wadalkaagii waa inta uu sheegay Cabdifarax waxa laga doonayaa nimanka ganacsadayaasha nimanka baabuurta leh nimanka maxay haytooy laga maarmi maayo wadada nin waliba waa u tilcsan yahay nin waliba dhulkiisa wixii uu gashado ubadkeeda u aayaya caalamiga iyo beesha caalamka waa naylowday وصحن واحد وحقوق الآدمية كانت رأيك سوالي يعني كل هذا حيبان كمدنا مركور التاو حن لا يعني الناس وقيم هاتو حن لها اللياه مركا تاكي قدبو قبل كعين بالشرط كنول اللي يري ويل كان عصته وضيال عقال وحقرت قبضو هويوين وحن لا يعني حلقة قيب هاتو هول آدي آدو بلارن أو وضده لغو بحريو hawlihii aynu horay uga habsaanay baynu imika ku baraarugnay hadaynu nahay gobolka Cayn waxaynu u baahan nahay qof allaale qofkii dhagax gashanaya law gashanaya mid shay gashanaya mid dhagax waaweyn gashanaya mid walba waxaanu ku soo dhaweynaynaa kii lacag gashanaya kii xoog gashanaya waxaanu ku soo dhaweynaynaa inay u halgamaan wadada dhibaatada had iyo goor inay gaaraysa balliga baabuurteenu ay wax ku noqonayso ee dadkeenu ku noqonayo waxaanu u baahanay arintaas si degdeg ah in gobolka Cayn uu uga soo qayb galo محمد علي بلي بوهودله